قيبها هذا الكعصوي وين تخان وين التوا مليه وين التوا حيليه وين التاكل وفاعل كان وين التوا مفعول هذا انت كالقرين ايش كده انا عديل الناس عديل صراحه بي بي سي كلمه كل جوجي xilliyada kamida waxa culays ku hayn jiray afarta jiho sidii afar magaco la isla yaqaan loogu heli waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed dhibka ugu badan oo hadda anaga aragno waxa waaye koow lamaanayaasha waa meesha ugu dhibka badan oo qof kasta oo qoraa maalin kasta la yiraahdo dib u heshiisiin ma koow iyo laba sano qoraa lama yaqaan marka la jara ereygi talyaaniga ahaa qoraa ayay si qaloo u qorto waxa jira cimilo oo kale ayay u qortay markii cimilo u qortay erey hore Soomaaliya cimilo la yiraahdo jiray ama ka hadlay wadanka laakiin markaan buugaan ka dhex arkay nin ismaankeena didiina afka dabooshay oo yiri aniga af malihi mudaharaad muddan ayuu yiri afkayga ilaa la qoro afka ma feedayo ilaa qof aqli minni aniga markaas aan inta wada badan ee mooralkaygu isbedelay magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan caynte waxaan ka tirsanahay macad heritage ee daraasaadka ee dalabta kulankan ay isla qabanqaabiyeen xarun kale oo internews la yidhaahdo waan soo dhaweynaynaa dhammaantiin kulankan wuxuu qayb ka yahay kulamo joogta ah oo aan si joogta ah u sameyno oo aan ugu magacdarnay madasha aragti weydaarsiga ama forum for ideas waan isku dayno bishiiba mar ugu yaraan inaan qabanno arrimaha dalka ka jiro kala duwan maanta waxaan ka hadlaynaa waa la yidhi afka Soomaaliga sida ay warbaahinta Soomaaliyeed u isticmaasho si mawduucaas aan si uga bogano waxaan isu keennay afar qof oo is leeyahay mawduucaas dad uga aqoon dheer ama uga cilmi badan ama uga waayo aragnimo badan way yaryihiin dhankayga midig haddaan ka bilaabo waxaa fadhiya Mustafa Cabdullaahi oo macalinka ah jaamacadda Muqdisho University kana tirsan macadkeeda daraasaadka Soomaaliyeed ama Institute for Somali Studies oo jaamacaddu ay leedahay kuna takhasusay luqada jaamacaddaasna ka dhiga dhankayga bidix waxaa fadhiya Axmed Suleymaan oo macalin shiraac dad badan ay yaqaanaan oo Soomaaliga way aragnimo dheer iyo qoraalkiisa u leh shaqo badanna haddaba ka wada meelo kala duwanna hawsheeda uga jira isagaa noo sheegi doono bidixdiisa waxaa fadhiya Abshir Maxamed Axmed ama Abshir Bukhari loo yaqaano asna muddo dheer afka Soomaaliga iyo qoraalkiisa iyo buwaagtiisa ku jiray haddana ka mid ah dadka warbaahinta magaalada Muqdisho ka mid ah kuwa ugu muhiimsan Radio Goobjoog iyo Somali Media Academy oo labaduba warbaahin la xiriira madax ka ah runtaan idin sheegayaan dadka wax laga badan meeyay waxaad noqon kartaa maanta marka halka ka tagto qof walba xisaabta isku noqo sidee wax loo qoraa imkaan idin sheegay ko wala naxwa taqaan qaybaha hadalka Soomaaliga wayna taqaan wayna tawa meeleye wayna tawa xiliye wayna taakal wa faa'il kan wayna tawa maf'ul haddaan inta kala garanayn ay iska daynaan dadka cadib الناس cadib runtaa wanaagsan ko كم كان يسوق ما كحوي إما كدت كين هالك فردي هذا ويديو قدر دي وما حوي قيبها هالك دي ذي ملاي حليلية في الكاب مقع عيال يفعل شرط واحد كل جناه دت كين هالك فردي إن يرون كنا كتوب فرق تريس واحد سيين هذا أنا واحد قلنا ما حنا ما قريت كو هكذا قلنا كنا قلنا يا إسكوسي وين لو قرأ oo qaacidaysan imka ay waxa weeye ilaa hargeysa halkan xal koonfur ma dhaafin laakiin Puntland waa tay meel baan tay Djibouti waa tay Jijiyo waa tay jumla mufida wa hawraad kaliya ayaan Soomaalida qora laba qof oo isku soo qoraysa ma jirto imka hadaan di weydiiyo wata la ilama kala qaban registrey waa waxaan ku imtixaano dadka waxaan ku imtixaanaa hal hawraan war waxa qortaan la ilama kala qaban registrey waxay qorayaan wadiyaabsa Leila la qoraya Leila kuma jirto meesha ma magac hablaha loo bixiyo Leila kuma jirto qof walba isku noqo
marka maxaa loo baahan yahay ya qof walba sida doonto qof walba siduu doono ay la noqoto oo dhakadiisa ayuu ka qoraa sidaasoo aan haddana lahayn qaacidada male qof waliba waa sax anu cid ma sixi karo anoo afka 24 sano baan afka baadhay haddana ma kula waxaan waa khaldan iyaad sheegaysaa ku kordhay hore af Soomaali ma lahayn wax ana ka aqaan marka waxa weeye laguma kala horeeyo laguma kala xariibsana ummad sida farahaas lama arkin xagga siyaasadda iska mid baan xagga waxaan nahay afka iska mid baan xagga qoraalka iska mid baan qof ka horeeyo ma jiro waxayna baabiyeen wax ko marka waxaan ka soo qalayaa haddii qoraalku aanu midaystin mashaakilkiisa aan tusaya horta waad jeclaysaa waxaan anigu qoray markaan kuu keeno waad jeclaysaa waayo sawirku waa maxay waxaan leeyahay qoraalku akhrisku waa maxay waa photographic waa sawir haddii ereygu fadhiisan waayo oo meel fadhiyi waayo mar wax cusub buu noqonayaa waad jeclaysaa marka jecel akhriskaagu wuu gaabinaya fahamxumo way imanaysaa laguma kala xariibsana qoraalkii oo laga niyad jabay marka dad badan wax qori lahaa ayaa markay waxaan arkeen ka niyad jabay afraad ka qaaday dib u dhac ku yimaada qoraalka intaas oo dhan baa imanaysa saxaafadda Soomaaliya markii la eego markaan xaggan afka ka hadlayno aan waxaan sir waxay u baahan tahay inaan saddex qaybood kaalinta afka ay ku leedahay marka la fiirinayo in saddex marxaladood loo qaybiyo oo kala dambeeyay marxaladda koowaad waa marxaladda idaacadaha waxay ka soo bilaabataa 1941 waa markii ugu horeysay oo idaacad af Soomaali ku hadasho la helo waxay ahayd idaacadda Radio Hargeysa markaa hore Ingiriisku uu sameeyay waxa la dhihi jiray Radio Kudub dhowr sano kadib baa loo baxshay Radio Hargeysa waxaa ku soo xigay Radio Muqdisho oo isna ah 1951 kadibna waxaa soo raacay idaacado kale oo caalami ah sida BBC-da oo kaleeto idaacaddii Qaahira ee Sawtul Arab oo kale Moscow Radio Moscow oo kale marka way si idaacadahaas oo dhan marka waxay adeegsanayeen af Soomaaligu ma qornayn si rasmi ah uma qornayn laakiin af Soomaali bay adeegsanayeen marka waxyaabaha ay qaban jireen waxaa ka mid ah idaacadaha saxaafadda xilligaas saameynta ay samaysay waxaa ka mid ah afka kaalinta ay ku qaadatay inay sameeyaan afka guud ee common language-ka la yiraahdo ee dadka ka dhaxeeya lahjad markii la yahay qof walba deegaankiisu yaqaan laakiin markii saxaafaddu timaado waxay u baahan tahay common language-kaas waxyaabo yar oo imika agteena ah aynu wada naqaano ayaa laga yaabaa marka dib loogu laabto 40 sano ama 50 sano inuu ku ahaa hawl weyn ay ka doodi jireen waa laga yaabaa Cabdiraxmaan inuu maadaama BBC-da soo joogay inuu waxyaabaha qaar inoogu daro laakiin waxaa ka mid ah tusaale ahaan BBC-da oo kale markii la joogay xilliyada ka mid ah waxaa culays ku hayn jiray afarta jiho sidii afar magacoo la isla yaqaan loogu heli lahaa waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed waa arrin hadda qof kasta Soomaaliya marka la fiirsho uu garanayo laakiin deegaanadeena haddaan u laabano deegaan walba si uu isticmaalaa deegaanada qaarkood waxay u isticmaalaan bari iyo oraxsin مثلا tusaalahaan waqooyi iyo koonfur waxa laga yaabaa inaan waqooyi dad dhihin qibladii un la iska yiraahdo dadka qaarkood maadaama markii wariyaashii xilliga BBC-da joogay waqooyi u badnaayeen waxay u kala yaqaanaan مثلا أحمد شفاع بقى هذا إلى جوجي مركب جوبن لينا هذا وحي واحد وقوي هود هذي لينا هذا وكونفور هرجيسة هذا تكتوقف كده وحاجين حاجة هود بندقنا هود وحجة كونفور ساسون بيكتها هاي مركب أفر تجهو مقعيضة تدك قوية قانان إن مركب الله بعضه إن واحد يسلا قانان يسلا أديك سدان وجروح كتوسين يسابعي وين وجرتي مركب إذا حدو كالي تكقاتين بكمل هذا وحكى له كمل هذا إيري بحنته waxyaabaha qaarkood hadda aynu iska adeegsano oo fara badan oo caan noqday baa beriga u baahnaa dayax gacmeed baa yimid magaca iyagun baa la baxay dayax gacmeed ereyada minka Cabdiraxmaan markii wada sheekaysanayno uu tilmaamayo waxa kamid ahaa idaacadaha ereyadeennu hadda aad u maqalle muxuu ahaayay marinka Gaza iyo daanta galbeed iyo marka daan iyo marin iyo tarjumidiisa ereyada in loo soo tarjumo ilaa marka dambe iska noqdeen terminology dadkoo dhan ay adeegsanayaan marka waxay kamid ahayd waxyaabaha markii erey bixinta markii dayax gacmeed la yiraahdo sharqul awsat bariga uu qasaan jiray bariga dhexe mesela loo tarjumo waxyaabo ereyo noocaas oo kale ah way lahaayeen oo erey bixinta kaalin weyn bay ka soo qaateen
xilligii dambe waxay marxaladda labaad marka la eego waa marxaladii af Soomaaliga la qoray 1972 si rasmi loo qoray waxa xigay marka in la helo joornaal soo baxa waxaan filayaa joornaalkii ugu horreeyay marka af Soomaaliga rasmiga ku soo baxay inuu ahaa wargeyskii xidigta October oo Janaayo 1973 ay ahayd xilligan filayo inuu soo baxay xilligaa waxaa bilowday saxaafadii waxaa soo raacay waxyaabo kaleeto oo markii hore kaalin weyn afka ku lahayn inay markan ku yeeshaan saxaafadii idaacadii waxaa ku darsamay wargeysiyo oo qoraal ah laakiin waa isla hawshii hore ay idaacaduhu hayeen waxaa markan soo raacay afka maamulka maadaama afkii uu noqday afka rasmiga jamhuuriyadda Soomaaliya oo maamul iyo xafiisyadii loo baahan yahay in lagu adeegsado eray bixin xafiisyada looga baahan yahay baa jira saxaafadii waa lala wadaagay halkii markii hore ay kaligeed ku ahayd waxaa la mid ah waxbarashadii oo markii iskuuladii ilaa dugsi hoose dhexe sare af Soomaali laga dhigay ayaguna eray bixin badan oo dhankii cilmiga iyo sayniska iyo u baahan maadooyinkii kale la qaadanayay baa meesha soo galay marxaladaasna kaalin weyn iyo saxaafadu ku lahayd kaalimahan kale waa lala wadaagaa laakiin saxaafadu kaalin weyn bay weli ku lahayd ereyada siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhacdooyinka wararka caalamka ka dhacaya eray bixinta ugu badan iyaga sameynayay waxaan rabaa inaan ka bilaabo mushkilada ugu horeysa oo warbaahinta haysa maanta waxa waaye waa hikaada ama qoraalka sida loo qoro afka Soomaaliga dhibaatadaas waxay ka haysataa warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta joogto guud ahaan dadka wax qora gaar ahaan dadka warbaahinta ka shaqeeya waxay dhibaatadaas marka maaragtay qoraalka afka Soomaaliga waxaa loo qaybin karaa laba qaybood qayb waxa waaye waa dadka jiilka yar ee hadda maaragtay cusub oo aan hore u soo qori jirin afka Soomaaliga ama dugsiyada ay soo barteen aan afka Soomaaliga ku baran ama Carabi wax ku bartay ama Ingiriis wax ku bartay ee warbaahinta markay yimaadeen duruuftay ku kaliftay inay af Soomaali qoraan taas waxay keenaysaa qalad aad fara badan maaragtay oo afkii Soomaaliga ka jira qaladkaas wuxuu ka imaanayaa waxa waaye afka Soomaaliga sida uu sheegay Mustafa iyo la wada og yahay waxaa la qoray 1972 isagoo af Soomaaligu 18 sano jira yaa qaranjabkii dalka dhacay oo ku jira marxaladii afka Soomaaliga uu hormari lahaa marka 18 sano kadib waxna kuma soo kordhin maaragtay habeyntiisii ama hagaajintiisii laakiin waxaa ku soo kordhay erayo fara badan oo nolosha maaragtay saameyn ku leh oo ama kala guurkii colaadihii dadkii qurbaha tegay maaragtay sayniska maaragtay isbedelada ku yimid teknolojiyada waxaasoo dhan ay keeneen marka dadkaasoo dhan maaragtay waxay kala kulmeen maaragtay afkii Soomaaliga qoraalkiisii dhibaato aad u fara badan dhibka ugu badan oo hadda annaga aan aragno waxa waaye kow lamaanayaasha waa meesha ugu dhibka badan oo qof kasta oo qoraa uu maalin kasta qaato haddii la yidhaahdo dib u heshiisiin ma kow iyo laba see loo qoraa lama yaqaano marka la jarjaraya maxaa yeelay linguistically lama baran waxaa labaysa erayada maantay loo badan yahay in la isticmaalo baahidu keenaysaa asalkooda waxaa laga soo tabalxaaraystay ajnabi erayo maaragtay afaf shisheeye sida af Ingiriisiga iyo Carabiga saxafiga Soomaaliga ah ee afka Soomaaliga beejka ku qorana boqolkiiba 70 iyo in ka badan ma yaqaanaan afka Ingiriisiga mana yaqaan afka Carabiga sidaas darteed eray uusan garanaynin asalkiisii wuxuu ku qasbanaaday maadaama arabixin haysan inuu qoro waxaa arkaysaa qaxootiga laga saaray dugsiga polytechnico qoraya polytechnico qoraya polytechnico aniga inta waa arkay ma aha tusaalooyin iyo qoraya maanta polytechnico ana arkay website kale oo qoraya polytechnico waxaas waxa keenaya eraygu waa ajnabi ninkaan eray ajnabi maaragtay saxafigaan hore uma garanaynin dhibaatada kale warbaahinta haysataa waxa waaye waxaa la yidhaahdo xulashada erayada taasoo ah Soomaaliya dhibka colaadaha maaragtay dhaliyay ama isfaham darrada waxaa ka mid ah communication-kii yaa dhumay maadaama aan loo cabiraynin maaragtay erayadiisa sax ah tusaalayaasha haddii tusaalooyinka aada u fara badan qofkii inuu fahmo eraygii wixii jumladii ama fariinta waxay ku xiran tahay erayada la isticmaalo oo la xulanayo gadaalan hadda ka bilaabayaa maalmahan gadaalan u soconayaa inkastoo waqtiguusa saamaxay
warbaahinta hadda in badan oo kamid ah waxaad ku arkaysaa xildhibaano soo goostay xildhibaanada defectors waa iyaga waxaa leeyahay waa xildhibaano soo goostay marka eraygii xulashadiisii maadaama maqalkeennii uu ku batay erayadii colaada oo maaragta waayahan goosasho la garanayay immediately waxaa la isticmaalayaa xildhibaana soo goosta la leeyahay dagaal inuu ka soo baxay inuu maaragtay ur kala galay dhibaatada waxaad arkaysaa oo aada iyo aada maaragtay u fara badan warbaahinta oo erayadii xolanayeen ay leeyihiin dagaallo si habsami u socdo erey positive dagaalka negative marka dagaal habsami u socdo waa ammaanaysaa ammaan waay habsamina waxaa iskale shirkan habsami u dhacay iyo wixii lamid ah waxay leeyihiin maaragtay roobab ayaa ku dhuftay gobolka waqooyi galbeed marka maaragtay duufaan ku dhacaa marka erayadii oo dhan waxay noqonayaan qofku waxaa laga rabaa isagaa rabaa inuu erayga cusub markii maalin kasta aan dhahno madaxweynihii ayaa wuxuu u safray dowladda jabuuti dalaa loo safraa dowladda loo safra waxaan leeyahay dowladda jabuuti ah laakiin waxay ahayd in la dhaho dalka jabuuti madaxweyne ah marka taas iyo erayadaas intaasoo ka badan waxay ku maaragtay yihiin dhibaato hadda warbaahinta haysata maxaa yeelay cid faafreebtaana ma jirto qoraalkiina wuxuu noqday dhibaatadii aan kasoo sheekeynayna ugu horreysay warbaahinta milkilayaal badan iyo dad ka shaqeeyaan waa joogaan markii media outletkan ay ka shaqeeyaan 50 ama 40 ama 30 waxaa wax qora oo keliya 3 iyo 4 warbaahinta inta kale afki afmaalayaal website-yada 3-4 qorta iyagana waa la yaqaanaa iyagana dhibaato fara badan iyo marxalada aragteen iyo hadda waxaan tilmaamaynay oo dhan ayay maaragtay ay ku jiraan dad badan oo ka cararaya Soomaaliga ayaa jira oo ama dawladii markaa dhacday oo aan iyo lahaa Soomaalina yahay noo baran afafka kale habartaan carruurteeda markii ay imika ama dib ugu soo noqdaan dalka amaba waalidkoodii kale ka hadhay loo keena carruurtii lafkii ku hadlay dad ajaanib oo kale ayay uga dhigan yihiin marka saasuu yani afkaagu inaad haysataa أو أي أطاي ما تقول له شيء أطاي مهم خلادات يغير يلباتوي كهات كتاعن وحي نوش جاي قبل ديجو الرئيسي مركب كل نقول مايو ويتشرانو ولبناي واحد تحصيل لقى بحكرنا أيام سيدي عن هذا وبلا بالهيلو وبلا بالهيلو ما نديش شيء وحن سوتشو يعني قلت لك iyadoo ay ka jirto hal joornaal oo kaliya iyo hal raadiyo oo kaliya joornaalka waxaa loo jiray xiddigta October raadiyogana waxaa raadiyo Muqdisho iyo wax kale oo warbaahin oo dalka ka jirtay ma jirin maantana warbaahintu arkay marayso iyo sidii u fiday waan arkaynaa taasi waa guul marka khaladaadka yaryar ama afkii ku dhacay in la daweeyo oo loo baahan yahay laakiin horumarka kale ay warbaahintu gaadhay ayaa ka muhiimsan oo inaan weliba sii hirgelino sii horumarino loo baahan yahay waxaa markaasi saldhig u ah arrimahan daaweyntooda waxa weeye inagoo iskaashana aqoon-yahanada dhinaca afka iyo xarunta u gaara arrintaasi oo ay sidaas akademiyada cilmiga iyo fanka ee Soomaaliga oo haatan dib loo aasaasayo muddo la ka maqnayd hawsha waan iska kaashanaynaa waana la sixi doonaa kuwaas way jiraan in afku iska ballaadhay in markay hore wuxuu u soo socday inuu noqdo af yani la og yahay isticmaalkiisu raadiyoga maadaama meel keliya laga xukumayay oo meel keliya lagaga hadlayay standardization-kiisu wuu fiicnaa dhinac uu janjeeray laakiin maaha lama odhan karo kii saxda ahaayoo keliya ayuu ahaayo waxaa jira lahjado badan dadku way kala afduwan yihiin markaa inuu lahjadaha qaarkood ama mid ka mid yihiin ay xoogeysatay waa dhici kartaa iyadoo taasi ay yani in sideeda loo qaatana loo baahan yahay
amaba aan ay tahay tallaabo ka mid a tallaabooyinka muhimka ayaa haddana waxaa loo baahan yahay in lahjadihii kale laftoodii iyaga laftoodana la tixgeliyo oo wixii laga qaadanayo laga qaato ee aan loolin afkii standardkaa kuma jira ereyga aan iska tuurno momentumkii markaa uu ku socday afka horumarkiisa ayaa waxaan siinayaa hal tusaale waqtigaasi markii la sameynaya ugu horreysay ee afka qoraalkiisa la bilaabay ayaa waxaa isku yimid qolo khubaraa waxay sameynayaan markaasi wax la yidhaahdo erey bixintii erayo ayay soo qoreen marka af ingiriisi iyo talyaani iyo afaf kala duwan ku qoraa erayaday soo qoreen waxaa ka mid ahaa erey la yidhaahdo climo oo af talyaaniga ku ah cimilada gabadhii markaa wiil wuu noqon karaa laakiin gabadh baa waqtigaasi karaaniyadda ahayd ereygii talyaaniga ahaa ee qoraa ayay si kale u qorto waxay tiri cimilo oo kale ayay u qortay markay cimilo u qortay erey hore oo soomaaliya cimilo la yidhaha ma jirin ama ka hadlayo wadanka sidii buu ku hirgalay waayo waxa waday markaa afka wuxuu ah momentum dalku uu ku socday markaa xawli uu ku socday dalku ayaa dhaqaajiyey iminka cid isweydiisa yani inuu ereygaasi qaladkaa ku yimid iyo kale ma jiro marka sidii oo kale ayaa loo baahan yahay iminkana inay isku yimaadaan warfaafinta warbaahinta iyo khubarada kale aqoonta u leh afka lana sameeyo markaasi fagaare ama madan lagaga doodo afka oo lagu soo bandhigo kolba arrimaha soo baxa ama issueska markaa jira ee dhinaca afka sida kan kuwa ay tilmaameen khubaradii iga horreysay dabeetana markaa la isla meel dhigo oo meel loogu wada arooriyo markaasi laguna toosiyo ayuu u baahan yahay markaasi taasi ayaynu bilowgeedii haatan ku tali jirnaa waana mahadsantihiin xoogaa fiican haysanaa marka waxaan rabaa protocolka inaan isku raacno oo su-aalaha iyo jawaabaha iyo commentiska qofkii fariimaya uu soo gudbin karo kow waxaan jeclaan in qofkii fariin qaba inuu ama su-aal qaba inuu gacanta taago magaciisa noo sheego meeshuu ka shaqeeyo haddii uu meel intaas inuu noo sheego labo fadlan su-aalaha inaanay ka badan ama interventionkaada ama intaa hadlaysa labada qeer inaan ka badan si aan isku dayno dadka inta ugu badan aan u gaarno waqtiga noo haray saddex maadaama annaga aan nahay macad cilmi baaris iyo maskaxmaal iyo talo wadaag ka shaqeeya waxaan aad u jeclaan lahay problemyada waa xoogaa waa laga hadlay haddana inoo si heli doona u malaynaynaa dhibaatooyinka iyo culeysyada jira laakiin xal wixii ah wixii tala ah culays inuu jiro isla jeednaa ee afka soomaaliga iyo warbaahinta iyo calaaqaadka dhexeeya in culays xoog ka jiro marka xagga talooyinka iyo xalka inaan ka abaarno ayaan aad iyo aad usoo jeedinayna haddii la idmo oo su-aalaha iyo fariimaha intaas u badnaadaan baraha bulshada lafteed wax badanaa ka socda dhawr badanaa ka jira in lagu lahaado oo mar walba intaan meeshan fadhina waxaan ku ereyey waxaa jira madal noocaas oo looga hadlaayo dhibaatada afka soomaaliga haysata dad badan baa marka oo talooyin kasoo bixiya waxyaaba ka bixinayna waxaa ka mid a subxaan allah walaal waxaa isku fiirin meeshan ha riixin haddana wuxuu kuleeyahay akhri dhibaato halkaa ka jirta marka in saxaafadda lafteeda oo halka waxaa looga hadlaya in horumarinta saxaafadda ee luqadda ayadoo lagu salaynayo afka soomaaliga hagaajintiisa inay u dhug yeelato oo ay ka dadaasho oo ay u toosiso oo ay imtixaan bixiso afkeena soomaaliga waa mahadsantihiin aabe iskuul aad dadku u neceb yihiin oo soomaaliga uu dumar farigeeyey oo hal xabo ku yaalay magaalada markaan galaaska shanaad maraya waxay ama iskuul ma tagayo ama ha layga saara iskuulkaan oo dadku aad u jeclaan waa layga saara markii dambe laakiin markaan buuggaan ka dhex arkay nin cismaankeena didayraado afka dabooshay oo yidhi aniga af malihi mudaaharaad muddo dhan hayoo yidhi afkayga ilaa la qoro afka ma feedayo ilaa qof afla mihi aniga markaasaa runtii wax badan ee moralkaygu isbedelay waxaana jeclahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan odayaashii hadeertaan af soomaaliga muddada badan usoo joogay oo ilaa isagoon afba qornayn joogay usoo dagaalamay waddo badan oo usoo maray inaan iyaguna aan ka tala qaadano runtii baraarug badanaa lookaga baahan yahay xoog badan dhalinyarada inay afkooda u heeliyaan salaamu calaykum
anigu dadka dhalinyarada ah oo maantayto warbaahinta ku jira aad iyo aad baan u bogaadinaya aad iyo aad baan u ammaanahaya waayo waxaan ku ammaanahaya iyadoon cidina wax barin iyadoo aan farta la barin iyadoo aan ka helin iskuul ay ka bartaan dadaal ayaga ay sameeyeen oo ayaga ay dadaaleen inay wax qorayaan wax akhriyayaan wax alifayaan oo samaynayaan aniga waxay la tahay in ammaan badan muday waa nool yahay afsi waa shaqeynaya dadkii waa ka mid laakiin ma qoraalkii baan xoog lahayn marka waxay u baahan tahay waa qoraalkii dhalinyarada lagama rabo qoraalkii yaa laga rabaa hay-adaha gacanta ku hayo qorid waxbarashada maamul dawlad dadka haya meesha laga soo markii arday wiilkaaga markaad dhasho gacanta aad qabato iskuul aad geynayso macallin baad u geynaysaa bara sida wax loo qoro kuwaan macallin ma helin kuwaan macallin wax u sheega ma helin marka eed ayagu ma macallinka waa maqan qabyaaladda waa isla naqaan oo dadkii hadda waa kala soo soomay federaal iyo sistemyo yaab laho dadka kala geeyaa wadankii af soomaaliga iyo saxaafadda sidii u federaaloobeynaa waa wada federaal ayagoo dhan websaydyada waxay isticmaalaan luuqad federaal ah oo nin kasta tiisa u gaara xaafadiisa inta yare looga hadlo uu rabaa in wax lagu faafiyo sheekooyin badan oo arkay waaye dad badan oo waxaa arkaysaa websaytka ownerka ah ama qof maamulka ah ku dhahayo marniyow qaabkan aa wax u qorayso siyaasadda websaytka ka mid ahne af soomaali noocan aan ahaynaa jireen noo soo qoro annagaa isticmaala waa fahmaa wuxuu ka wadaa waxa xaafadiisa looga hadla keliya marka waa federaaloobe nin kasto inta yaroo degan yahay iyo lahjadiisii qolooyinka kale iska ilaali haddii masalan haddii aa erey tidaa aa qorto tidaa waa dhac soo ma ninaa kula dagaala war tiraa dhaw kuleeya tiraa maxaa dhac isticmaale marka waa la kala qawaabsan yahay dadku waa kala sii jeedaan saameyntaasna waxaa keenay siyaasadda waagii Itoobiyaanka marxaladihii waddanka ayaa si toos ah loo soo gudbinayay waxa magaalada ka dhaco waxaan aad u isticmaali jiray aan xasuustaa tusaale hal qarax inuu dhaco suurtagal ee maalintaasi anagoo reporter ah war raadinayno qaraxi inaan maqalno reporteradii ay aadaan markaasaan idaacad intaan toos u soo galo waxaan dhihi jiray qaraxyo ka dhacay Muqdisho dadku marku waxay u fahmayaan dhowr qarax inay magaalada ay ka dhaceen markii warkii la dhageystana waxa suurta hal qarax bis inuu ka dhacay magaalada laakiin qaraxyo fara badan aysan jirin ustaad Shariif جزاكم الله خيرا يا حسوستاين وإيجا صحي رياضاسي أو ما كم يدو يوعي وير قاب كان وأديك سمرك وحنا قبا ضدك كأقوم تصرية أو سدح دقاب أو رجستياش كجرة أيجين إنك الساعد كلام ورياش أمرك أي وربعين تيجي سنة يعني قلات كاسي إنك السعد كلام وريين وحلو قباهيا ويحقف كيكا وين أما كايو يا رقصة وحكوش شاقة إن أدو أركتيد وحدن قوة مستقبل كابينا أتكبد بهذه كرتي. أنت واحد كوريا يعني اللوبي أفكو كوريا إذا كنا نيرتنا كذا وتساعد لكن أف السباش أنا أقول واحد سوي ريسيرش قبل لا تشافكم بينواي تجاشن كبار البريتي يعني كوالا فيلم وأف السورو ورسالة الدكتور شيبانا منطقة قاموس كافة إنجليزية سنة كيبو واحد ريع سوبر مدرع توصل لدود كهرو قاري 1 مليون أو أري ولو قروا قاموس عمل في القرية ثم ردوا على استهداف كود ويهاني آتنوا قاموس وقوة بغاراني ولله يوغا لحدني لحكم ويهاني مركا ereyada cusubna marka hawa ururiyo hana lagu diro hana la isticmaalo waxyaabaha sida saarka loo qaban karo inay kamid yihiin hay'adaha warbaahinta qofka saxafigu ma hay'adaha warbaahinta ama aan noqdaan idaacad ama aan noqoto website waxay u baahan yihiin erey bixin waxyaabaha wararka dhacdooyinka ereyada ku cusboonaada intaan cid kale la sugin inay ereyo bixin ay u sameeyaan erey bixintaasi waxay gacan siinaysaa qofka saxafiga marka idaacadaas ama website-kaas qofka ka hadlaya ama wax ku qoraya ka tirsan wariyaasheedu ereyadaas oo kaalmaysanaya oo adeegsanaya marka waa waxyaabo idaacaduna way sameyn jireen joornaaladuna way sameyn jireen waa glossary yar oo kooban oo ereyo u macnaynaya marka waxay la tahay taas idaacad hay'ad kastoo warbaahineed way samaysan kartaa inaan qofka wariyaha uun hawsha lagu simin ee intaa la qabsado saddex arrimood baa meesha mid
culimada af soomaaliga leh mid saxafiyiinta leh midna hay-adahan ka shaqeeya ee kalaale labada nin anaga tahay waxa weeye ciddii diyaara wax baan baraynaa egata xariif ma baahnin xariif ma doonayno laakiin ciddii diyaara wax baan barayna ko somaad idinkana waa in laydinka helo cid horta tawaaduc samaysa oo taha adab garan maayana bar kaasna waa loo baahan yahay kaa ma loo baahan yahay waayo kaan u baahnayn iska joog qolada saddexaad waxa weeye waa nimankaan la fadhino markaa iyagana waxaan ka doonaynaa mashaariic arrintaa ku saabsan oo degdeg loo fuliyo waayo baahi degdega ta baahidaa degdega waayo wax laga qabto markaa ta ugu horeysa ku tusaysa inaan culimadeeda ku sheegayno hadda waxaan ka dhigaa oo ismu tadawacnima uga dhigaa akademiyada media academy waa dad baan tababaraya marka 2 bilood 3 bilood bay ku dhamaysanayaan diblomana siin ma lidki helayaa waa diyaar warisna ma bixinaysaa hawshii ma qabsanaysaa oo ka takhras أنا أدري إن هالي قلنا يرون الصلاة دي بقى الجاري waxaan codsanayaa dadka weli su'aalaha qabo odayaasha inay gooni u arkaan raalina iga noqdo boqolkiiba boqol waqtiga anaga dhumay hal arrin aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo oo ah meeshaan maxaan ka guntin karnaa maxaa go-aan nooga noqon karaa aadayna arrintaan aan u moodaa in loo danaynayo Somali Media Academy waa joogtaa annagana waa joognaa internews qolo la yiraahdo waa joogtaa oo haddan barnaamijka maanta nala qabatay oo arrintaan danaynaysa xarbiya nagala jooga iyo Somali Academy yani ka tagin iyo cid kale iyo kaygo Somali language cid alla cid danaynaysa kala soo dhaweynayna keligee waxaan ku bilaabaynaa bisha soo socota hadday suuragal noqoto inaan isu nimaano December sometime kamid ah kulan kale aan qabanno aan tallaabo ka soo saarno arrintan waxa ugu fudud aan qaban karno haddaan wax weyn isku darsano waxay aniga ila tahay inaan sameyno madal lagu kala faa'iideysan karo eray bixinta erayada cusub idaacadihiin inta codad kasoo duubduubtaan aan isku dhageysan karno aan critique siin karno waxaasaan ka bedelaan dhihi karno website-yaasha aan fiirin karno waxa ugu weyn oo aan samayn karnaa waxay tahay dee mashaariic tababaro culus oo saddex bilood soconaya kuwa hadda shiraac iyo ay wadaan odayaasha kaloo ka mid ah inaan sameyno jaamacadda muqdisho waan nala joogtaa iyada naftigeeda hawshan wax badan ay ka wadaa intaas aan balort actionkaas aan ku kala tagno waan idiin mahad celinaya qolooyinka aan su-aalaha siinin aadaan uga cudur daarnaya raallinaha aadan odayaashan gooniya waa kan waana mahadsantihiin صباح